بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada iyo walaalaha qiimaha badan meel kasto adduunka aad ka joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak, Ramadaan barakeysan. Munaasabada bishan barakeysan ee Ramadaan aawadeed waxaan ugu talagalnay barnaamij aan isdhahay aad iyo aad ayuu ugu habboon yahay bisha barakeysan ee Ramadaan in aan aad iyo aad uga faa'iideysano wax badanna aan ka ogaano. barnaamijkan waxaan u bixinay soonka iyo caafimaadka. sida aad magaca barnaamijka ka garanaysaan waxaan uga hadli doonaa caafimaadka iyo soonka, xiriirka ka dhaxeeya iyo saameynta soonku uu ku leeyahay caafimaadka. annagoo markaa tixraacayna diraasaad iyo baaritaano tiro badan oo culimada caafimaadku ay ku sameeyeen soonka iyo saameyntiisa. xalaqadan ugu horeysa waxaan ugu talagalnay inay hordhac u noqoto barnaamijka soonka iyo caafimaadka. marka koowaad waxaan rabnaa horta inaan ogaano waajibaadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala adoomadiisa uu u diro ee adoomadiisa uu saaro. cibaadaadka si kale haddaan u dhahno waxa ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay waa inaan Ilaahay ku adeecno, waa in Ilaahay amarkiisa lagu yeelo. soonka wuxuu ka mid yahay faraa'ida ama waajibaadka dadka muslimiinta lagu waajib yeelay. wuxuu ka mid yahay arkaanta shanta ah ee diinteena islaamku ay ku taagan tahay. wuxuu ka mid yahay cibaadooyinka waaweyn ee laga rabo dadka muslimiinta ah inay la yimaadaan. sanadkii hal bil oo ka mid ah waana bisha Ramadaan ayaa qofka muslimka ah ee qaangaarka ah ee caaqilka ah ee awooda ee aan cudurdaarka lahayn laga rabaa inuu soomo. haddaba Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu quraankiisa kariimka ah ku leeyahay: yaa ayuha alladhiina aamanuu kutiba calaykumus siyaamu kamaa kutiba cala alladhiina min qablikum lacallakum tattaquun. dadka mu'miniinta oo waxaa la idinku waajib yeelay inaad soontaan sida loogu qoray oo lagu waajib yeelay ummadihii hore, si aad Allah subxaanahu wa tacaala uga cabsataan oo aad amarkiisa u qaadataan. ilaahay magaciisa waxaa ka mid ah al-Hakiim, waana Allah subxaanahu wa tacaala xikmad iyo xukunka u saaxiibka. Allah subxaanahu wa tacaala marka uu waajib noo diray waxaa jirto xikmad iyo faa'iido iyo ujeeddo aad iyo aad u xeel dheer oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka leeyahay oo qofkii la yimaadana uu adduun iyo aakhiraba ku faa'iidayo. xikmadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waajibaadka uu noo diray ka leeyahay in badan oo ka mid ah Allah subxaanahu wa tacaala cilmigiisa ayay ka mid tahay, laakiin qaar ka mid ah xikmadahaas ayuu Allah subxaanahu wa tacaala bani aadamka wax yar ka baray oo uu ka tusay. soonka wuxuu ka mid yahay cibaadaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu waajib yeelay, laakiin ay ku jirto fawaa'id iyo xikmado aad iyo aad u tiro badan oo in badan oo ka mid ah cilmiga bani aadamka uusan gaarin. xikmadaha waaweyn ee soonkaasi ku jira waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soonkaasi ka yeelay sabab qofka caafimaadkiisa iyo noloshiisa ay ku wanaagsanaato. soonka ma ahan tacdiib, mana ahan wax qofka culays dusha laga saarayo. Allah subxaanahu wa tacaala ummadiisa wax culays dusha kama saaro, laakiin Allah wuxuu ugu talagalay marka dadka ay amarkiisa qaataan inuu siiyo xikmadaha iyo faa'iidooyinka soonka ka dambaysa. soonku waa nafta oo la tababaro, nafta oo la saafi yeelo, nafta oo caafimaadkeeda iyo xayawiyadeeda iyo nashaadkeeda iyo nolosheedaba sare loo qaado oo la hormariyo. waqtiyadii dambe ee abxaasta iyo baaritaanadu aad iyo aad u bateen, aadna loo gudagalay in cilmiga caafimaadka wax badan lagu ogaado. dhaqaatiirta iyo culimada cilmiga caafimaadka ahba waxay il gooni ah u yeelanayeen soonka iyo saameynta uu ku leeyahay. waxaa laga qoray buugaag aad iyo aad u tiro badan, waxaa laga sameeyay diraasaad iyo baaritaano aad iyo aad u tiro badan oo ay u dambeysay diraasad laga sameeyay sanadkii 2020 hadda ina soo dhaafay. faa'iidooyinka caafimaad ee soonka ku jirta ayaa nin dhakhtar ah oo aad iyo aad u baaray soo ogaaday. waxaa lagu siiyay jaa'isadda Nobel Prize ee physiology sababtoo ah wuxuu wax ka soo ogaaday faa'iidooyinka waaweyn ee soonku u leeyahay caafimaadka.
sidaa darteed ayaa dhakhaatiirta qaar waxay bukaanadooda u qoraan maalmo soon ah si ay caafimaadkooda uu u soo hagaago. waxaa jiro oo meelaha qaar ka furan xarumo isku daaweynta soonka ah, yacni dad xanuunsan oo soonkii lagu daaweynayo. dhakhaatiir bukaanadooda ku daaweeyay soonka. ayadoo faahfaahsan ayaan barnaamijkeena gudihiisa uga hadli doonaa bal sida uu soonku u saameynayo caafimaadkeena, isla markaana uu u wanaajinayo nolosheena xayawiyadeeda iyo caafimaadkeeda iyo nashaadkeeda. allah subxaanahu wa tacaala markuu soonka nooga hadlayay wuxuu yidhi wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun. inaad soontaan ayaa idiin khayr badan haddii aad ogtihiin. inaad soontaan ayaa idiin faa'iido badan oo idiin waxtar badan oo idiin khayr badan haddii aad ogtihiin. allah subxaanahu wa tacaala khayrka uu soonkaa noogu sheegay waxaa ka mid ah inuu noo caafimaad badan yahay, jirkeenna caafimaadkiisana uu wax badan ka tarayo soonka. aad iyo aad ay u mahadsantihiin. aadna waa idiin salaamaya. ramadaan mubaarak.